Maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo muuqan doonta rajada aad u dadaashay. Maalin maalmaha ka mid ah waxaad ku faani doontaa dadaalka aad bixisay. Maalin maalmaha ka mid ah waxaad dareemi doontaa qof walaalo la jira in aanu quusan. Maalin maalmaha ka mid ah daalka aad dareentay waxaad kaga nasan doontaa mirihii aad soo saartay. Maanta mudnaanta ay leedahay kalibkeen si ay beri kuugu qurux badnaato. Waa run mushkilad ay nolosha huban tahay. Ogow waxa kaliya aad kaga talaabi kartaa waa adkaysi iyo samir joogto ah inaad kula dagaasho. Fashilku maaha midka hawl ku guuldareystay, balse fashilka dhabta ah waa midka ay caqabaduhu ka adkaadeen. Labada daarku guuleysigooda waxaa ka horeeya imtixaano tiro beel ah una baahan iimaan dhab ah. Ka badbaadida shaydaanka waxay ku xiran tahay inta ay la eg tahay iska caabinta aad kala hortagto. Nolosha guud ahaan waa waddo adag, kuwa kalsooni nafeed muujiya oo kaliya ayaa ka miro dhaliya. Qof walba waxa uu rabaa inuu nolosha wax ka gaadho, laakiin wax walba waxay ku yimaadaan dadaal iyo adkaysi. Marka aad kalsooni nafeed lumiso, dariiqda ugu fudud ayaa noqonaya dariiqda ugu adag. Noloshu waa ay adkaan kartaa, laakiin waa ay isbedeli doontaa. Eebbe kaasho, waa suuragal in safarka nolosha aad kaligaa ku tahay. Waa suuragal in mararka qaarkood mustaqbal xumo kuu sawiramo duruufaha iyo caqabadaha nolosha kugu gudban awgood. Waa suuragal inaadan xasuusanayn inaan anigu niyad ku hayo oo aan kugu boorinayo inaad halgankaaga sii wado. Sidoo kalena aan ku xasuusinayo awoodaha la yaabka leh ee uu Rabbi kugu galaday. Ha isdhiibin marnaba, adiga ayaa ah guuleystaha.